guddi baa u tagtay, guddidaasi waxay ugu tageen salaan iyo duco. wax kaloo intaa dhaafsan oo ay kala hadli karaan ma jirto. reer awdal iyo tiin may waxa u tahay maalintii la qabsaday, maalintii dhergigii Ethiopia in dhacdada xanuun kale soo martay hadday cidi kugu samaysay waad cafin kartaa cidii, laakiin ma iloobi kartid. xoojin loo keenay in reer awdal loo tuso inay yihiin Somaliland. reer awdal Somaliland ma aha. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, meel kasta waad naga daawanaysaan. halkani waa Galbeed TV. Jimca mubaarak, meel aad joogtaanba ummadda Soomaaliyeed, shacabka reer awdal state. laba qodob baan soo qaadan doonaa haddii ilaahay yiraahdo. qodobka ugu horeeya waa wacdigelintii aan shacabka reer awdal state markasta u soo gudbin jirnay oo ahayd inaan laga xusin gobolka awdal 18 May wax la yiraahdo oo beeri ku suntan tahay. ta kale waxaan ka hadli doonaa maalin dhaweyto waxaad arkayeen guddida uu magacaabay Ciro oo nabadgelyada iyo waxaasi ama nabadeynta oo uu mataqaanaa jagtay ama ugaaska u tagtay. labada qodob baan ka hadli doonaa. waxaan leeyahay horta marka ugu horeysa reer awdal ma laha 18 May. reer awdal 18 May waxa u tahay maalintii la qabsaday, maalintii dhergigii Ethiopia ee jabhadii asal ay qabsatay gobolka awdal weyn. rag badan baan arkayaa oo inkiraya kii hooyadii la dilay, aabihii la dilay, habaryartii la dilay oo kale maanta wax laga dilay ma jiro. oo taariikhda intaa leeg ummaddu adduunyadu arkayso record garaysan raba inuu dafiro maanta oo yiraahdo waxba ma dhicinba. kuwa waxaan leeyahay habeen ma jirtaan. qofku waa inuu qadiyadiisa ka hadli karo, waa inuu dhibaatooyinkii soo maray sharaxi karo, waa inuu ka hadli karo dhibta ku dhacday, waa inuu waad cafin kartaa laakiin ma iloobi kartid. waad cafin kartaa laakiin taariikhdaada iyo waxa ku soo maray, dhacdooyinka ku soo maray, hadday xanuunka badnaa iyo hadday ku soo mareen barwaaqo ku soo martayba labadaba waad ka hadli kartaa. laakiin dhacdada xanuun kale ku soo martay hadday cidi kugu samaysay waad cafin kartaa cidii, laakiin ma iloobi kartid. taariikhdu waa sidaas weeye. qofku waa inuu saa u fahmo taariikhda. marka shacabka reer awdal waxaan leeyahay maalin bayna soo martay, waan cafinay wixii dhacay, laakiin ma iloobi karno, waana ka hadli doonaa. waad ogtihiin Hargeysa in taalo in laga dhiso, waad ogtihiin meel walba in taalo laga dhiso. adna aan lagu ogolayn inaad taalo ka dhisato, dadkaaga ku xasuusto laguma ogola. laakiin mar bay iman doontaa inaad gobolkaaga ka dhisato waxaad u baahan tahay. waa markaad garato inuu calankan yahay calanka reer awdal state ay leeyihiin markuu dadku gartaan, markaasay iman doontaa inaad taaladaa dhisato aad waxaaga samaysato. laakiin waxaan leeyahay reer awdalow yaan la idinku dul dabaaldegin. cidda dabaaldegaysa waynu garanaynaa. toddobaadkii hore ciddii dabaaldegaysa waxay ahayd cid laga keenay gobollo kale oo xoojin loo keenay in reer awdal loo tuso inay yihiin Somaliland. reer awdal Somaliland ma aha, mana soo galaan. haddii la isku darsaday oo nabadgelyo ahayd, wixii maanta ma socoto, beelaa ka baxay, waa laga wada baxay, cid walba danteeday wadataa. reer awdalna wax ku qasbi karaa ma jirto. taasi waa taas. ta labaad waxaan maqlayaa qaar badan oo ka hadlaya ugaaskii baa la keenaya, ugaaskii baa yaa imanaya. ugaasku guddi baa u tagtay, guddidaasi waxay ugu tageen salaan iyo duco. wax kaloo intaa dhaafsan oo ay kala hadli karaan ma jirto. ugaasku waa ogyahay ciddii gantay ugaasku waa ogyahay. hadduu ugaasku imanayana sidaa kuma imanayee qadiyad buu ku imanayaa, gadabursi u dhan yahay buu ku imanayaa. hadday qurba joog tahay iyo hadday qorqol joog tahayba laga hadli karo oo la difaaci karo ayuu ku iman karaa oo laga doodayo. laakiin marka waxaan leeyahay dadka arrintaasi dad badan baa ka hadlaya oo lahaa mataqaanaa ugaaskii baa la soo celinaya, ugaaskii baa imanaya, ugaaskii baa kan. ugaasku sidaasi kuma imanayo. ugaasku waxa uu ku iman karaa qadiyadan ka duwan buu ku iman karaa. waanaan ka wada soconnaa ugaaska. aad baan u salaamaya xafidahullah. maxaan ku raadayay iyo inta taageersan ee ku taageersan in dadka reer awdal ay waxoogu samaystaan. aad iyo aad baan ugu taageerayaa, waan ku hambalyanaya ugaasku inuu go-aan ka qaato waxyaabaha noocaas oo kale. shacabkana waxaa leeyahay ugaaskiinu ma aha nin lasoo kaxaynayo oo lasoo gelbinayo sidii mataqaanaa arooska. waxa weeye nin qadiyad wata, qadiyad xambaarsan, qadiyad ummadeed wata. qadiyadda ummadana meesheeda lagu furfuri doonaa.